السلام عليكم geesinimada kaliya waxaad u baahan tahay geesinimo in aadan ka baqin mustaqbalka in aadan ka baqin isbeddelka inaad hor istaagto dabaylaha cabsida kadibna aad wajahdo waxaa la yidhi doontu markay xeebta ku xiran tahay waa aamin khatar kuma jirto laakiin arrinkaas looma samaynin waxaa loo sameeyey in ay dhex mushaaxda hireerka waaweyn gudaha fog ee badweynta cabsida badan sidaas ayaad la mid tahay laguma samaynin in aad gacmaha isi saarato in aadan waxba qabanin in aad baqdo isku qalabee geesinimo iyo dhiiranaan kadibna fooda geli hirarka nolosha ee aad ka baqayso waxaad rabtaa inaad hawl qabato laakiin waxaad ka baqaysaa fashil naftaadu waxay ku leedahay waad fashilmi waxaa lagugula talinayaa in aad dusha uga istaagto cabsidaas kadibna aad ku dhaqaaqdo qabashada hawshaas nin carbeed ayaa nolosha ku tilmaamay alxayaa imaa muqaamara jarii'a aw laa shay noloshu waa isbiimayn dhiiran ama waxbaba ma ahan waxaa la yidhi 20 sano kadib waxaad ka shallaayi howlaha aadan qabanin ka badan inta aad ka shallaayayso howlaha aad qabate xitaa laga yaabo inaad ku fashilantay waxaad u baahan tahay geesinimo si aad sariirta macaanka badan uga kacdo subaxdii geesinimo ayay u baahan tahay in aad buug soo qaaddo kadibna aad akhriso waqti naftaada ay ku leedahay maya moobaylka ayaa ka fiican geesinimo ayaad u baahan tahay si aad saaxiibada maya ugu dhahdo hadday wax aanan ku anfacaynin kuugu yeeraan geesinimo ayay u baahan tahay in aad cabsida naftirkeeda ka xorowdo in aadan ka baqin cid aanan ilaahay ahayn geesinimo ayaad u baahan tahay si aad u damiso shahwadaada una xakamayso taaluud markuu ciidankiisii soo hor istaagay ciidankii jaaluud waxaa imtixaan looga dhigay in ay naftooda ka adkaadaan ka hor inta ayna cadowga ka adkaanin waxaa lagu imtixaamay in ay naftooda ka celiyaan cabbitaanka biyaha in ay naftooda xakameeyaan markii laga reebo wax yar oo ay sacabkooda ku qaataan waa imtixaan ah ilaa aad naftiinna ka adkaataan kama adkaanaysaan ciidanka jaaluud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم إن يرأى يا امتحان كاسكو قولي ستي أو نفتو ذكاء كاتي أدون يا آخرة وحقوله مقاري كرتد ilaa aad naftaada ka adkaato geesi ma tahay in aad moobaylka demiso markay nafta ku dhahdo daawo aflaamta xunxun geesinimo ayay u baahan tahay in aad ka dhex baxdo caadooyinka xunxun ee xanta iyo maalayacniga aanan wax faa'iide kugu soo kordhinaynin nin tijaabooyin badan soo maray oo maalmuhu ruugeen ayaa yidhi waddada ugu runta badan ee aad kalsoonidaada ku xoojinayso waa in aad wajahdo waxa aad ka baqayso inaad fooda geliso waxaad rabtaa inaad samayso tusaale ahaan kanaal YouTube oo aad naftaada iyo dadkaba ku anfacdo haddaba hadda samee ha ka baqin qofna ha weydiinin sida loo sameeyo markaad madaxa la gasho adigaa fahmi doono adigoona bilaabin hawl ha isdhihin hebel ayaan weydiin hebel ayaa i fahansiin hebel ayaa ii samayn adiga bilow waxaa la isku raacay in uusan jirin wax la yidhaahdo wakhtiga ku habboon ayaan samayn xaalku markuu hagaago ayaan hawshan qaban adduun mashaakil iyo caqabado kama dhammaado waxa caqabadaas xallinayo oo wakhtiga ka dhigaya mid ku habboon waa adiga laakiin ma jiro wax la yidhaahdo wakhti hadda kuu imaado lagu magacaabo wakhtiga ku habboon ha sugin in la gaaro wakhti lagu magacaabo wakhtiga ku habboon duruufaha ka dhig adiga kuwa ku habboon waxaan maqlay qisada nin 22 sano jir asagoo ah damcay in uu guursado laakiin isku qanciyay in uu hanti haysanin oo uu guursan doono markuu xaalku isbedelo wax lagu magacaabo wakhtiga ku habboon haddaba ninkaas wuxuu yidhi maalintan 41 sano gaaray ayaan guursaday anigoona waxba iska kay bedelin dhinaca hantida laakiin markaan hawsha guurka bilaabay wax walba way fududaadeen howluhuna way isbedeleen ninkan intaasoo sano wuxuu sugayay gaaritaanka waxa lagu magacaabo wakhtiga ku habboon oo ah dabin ay dadka inta badan ku dhacaan inuu qofku isku qanciyo inuu farxi doono
in uu nolol fiican ku noolaan doono markii la gaaro waqtiga ku habboon. ardayga dugsiga dhexe dhigto ama dugsiga hoose wuxuu isku qanciyaa in uu farxad dareemi doono markuu bilaabo dugsiga sare. kan dugsiga sare dhigtana wuxuu isku qanciyaa in markuu jaamacadda bilaabo uu farxad dareemi doono. jaamacad markuu galana wuxuu isku qancin markaan hawl bilaabo oo aan shaqeeyo ayaan farxi oo ah waqtiga ku habboon. haddaba ha sugin in la gaaro waqti gooni ah, waqti loogu talagalay farxad. xaalka adduunka ayaa sidaase. waqtigan aad nooshahay oo aad hadda joogto isku day inaad farxad iyo nolol wanaagsan samaysato. weligaa farxad dib ha u dhiganin. qofku dareensiin kara ma lahan dhinaca kale in aad daciif tahay, in aad liidato haddii aadan adiga arrinkaas ku waafaqin. zamankan aan ku jirno waxaa sahlan in aad noqoto qof weyn, qof dadka ka soocan, in aad guul xaqiijiso. sababtoo ah dadka intooda badan waxay ku mashquulsan yihiin wax maalaa yacni ah. waad aragtaan in dadku 24 saac si indhala'aana ugu fooraraan Facebook iyo mobile. nin guulaha nolosha ka hadla ayaa yidhi, haddaad go'aan leedahay, haddaad geesi tahay, waxaa fudud waqtigan aan joogno in aad guul weyn xaqiijiso. dadka intooda badan wax ma akhriyaan. dadka intooda badan waxay ku mashquulsan yihiin wax aanan faa'iido u lahayn. waxaa caadi ah in qofku uu fiirsado 24 saac muuqaallo qosol ah, majaajilo, laakiin ay ku adag tahay in 10 daqiiqo keliya uu barto xirfad, mahaarad wax anfacaya inuu netkaas ka barto. internetka maanta waxaa laga heli karaa malaayiin muuqaallo ku anfacaya aad wax ka baran karto. laakiin naftu waxay jeceshahay muuqaallada qosolka, kuwa shactirada, muuqaallada maalayacniga ee aanan qofku waxba ku soo kordhinaynin. degso qorshe horay u socda, in aad maalin walba wax cusub faa'iidaysato, in aad isku daydo in wax uun aad faa'iidaysato, inayna qorraxdu kuu soo bixin kuuna dhicin adigoona wax isbeddel ah aanan samaynin, adigoona wax cusub aanan baranin. gudahaada waxaa ku jira macdan. macdankaas soo faaq, soona saar. macdankaada dhabtee xaqiiqiga waxaa tahay sidii dhul macaadin qaali ah laga soo faaqayo, laga soo saarayo. gacanta ku dhig faashka kartida, kadibna soo saar macdankaas. bani aadamka waxaa laga sameeyey ciid, wuxuu ka imaaday dhulkaas. tilmaamo badan ayaanan wadaagnaa dhulka. mawduuceena maanta intaan ayuu ku egyahay. insha allah waxaan is arki doonaa maalinta jimcaha. wixii intaas ka horreeya waxaan idiin rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.